dadkani qaxootiga ee soo gaaray magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa ay qayb ka ahaayeen dadkii ka soo cararay dagaalada xooggan ee ka soconaya dalka Yemen ee markan ku kala sugan gobolada dalka waxaana dadkani oo isugu jira haween dad ah iyo caruur isla markaana u badan haween ayaa waxa ay isugu jiraan Yemeniyiin iyo Soomaali oo markii hore dooni ka soo qaaday wadanka Yemen qayb ka mid ah ka dejisay magaalada Boosaaso waxa ayna dadkani sheegeen in ay soo caawiyay gaadiidkana ka soo bixiyay maamul goboleedka Puntland ilaa ay ka soo gaarayeen magaalada Muqdisho caasimadda dalka halka maamulka Jubbaland uu qaar ka mid ah dadkani uu ka caawiyay imaatinka magaalada Kismaayo Layloon Jamaal Maxamed waxa uu ka mid yahay howlwadeenada xarunta dadkani ay soo degeen isagoona codsi bini'aadanimo u diray maamulka Jubbaland hay'adaha caalamiga ah iyo guud ahaanba ummadda muslimiinta wuxuuna ka codsaday in dadkan gargaar degdeg ah lala soo gaaro iyo waliba dib u dejin arrimaha qaxootiga ka soo jabay Yemen Soomaaliya waxay ku maamahdaa anoo aabahey qaadi la aabahey kaane anakoo markaan horeba qaxooti iska ahaan ayaa qaxooti kale oo aanan awood u heli karin ilaaha awood leh nagu soo jabay waxay ka soo degeen Boosaaso alxamdulillah walaalahayna Puntland way soo caawiyeen ilaa Muqdisho ay soo gaarsiiyeen dadkii Muqdisho way ku xanibnaan dad waxay ka liftadeen inta anaka inaan isdhex orodno oo transport iyo waxaan u heli karnaa hadana inta sidii ay ku soo gaaraan qaar badan ay jidka ku xanibeen yihiin alxamdulillah ilaaha ma hadle waa qaxooti dul saaran indhiina idin macallin ah marka wax gargaar aadanimo ilaa hadda aan ka helnay dhan maamul dhan hay'ad ma aysan jiraan insha Allah taala waxaan codsanayaa sida ugu dhaqsiyaha badan gargaar degdeg ah in la soo gaaro maatadan baba taagan sidoo kale waa kuban qaar ka mid ah dadkan oo aan goobta kula kulmay waxayna iiga warbixiyeen dareenkooda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بركة سعيد بدر نتكلم قفاكم في غربة خرجوا من اليمن وجاءوا إلى صوماليا ولا معهم شيء ما لهم دنيتهم كلها خرجوا منهم 60 نفر عندي وخرجوا من اليمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بغيتكم ترسلونهم شيء وتدروهم أهلكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلهم عرب مجموعة من كل مكان ونحن في البلاد هذه Kismaayo ونحن تعبانين بحوالنا وجو ثقل فوقنا جو عرب من يمن جو ثانيين من كينيا نحن حالنا تعبان نشتي مساعدة من كل مكان الحمد لله جبال الله يساعدنا قليل الحمد لله نشكر الحمد لله في ناس جو من يمن جو بوساسو أعطوهم مساعدة جو لمن مقدشو يوم وصلوا مقدشو ما أعطوهم شيء نحن من هنا رسلناهم نول جو لمن هذا مكان ونحن حالنا الحمد لله ساعدونا يا جماعة يا أهل الخير من كل مكان أتكلم معنا الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين الطيبين. أنا إبراهيم حسن موسى. لقد حضروا إلينا هنا من جميع المناطق ومن اليمن خاصة جاءوا إلى بساسو ومن بساسو حضروا إلى مقديشو ومن مقديشو لم يجدوا المواصلات وهنا حكومة جوبلاند ساعدتنا بقدر إمكانياتها. waa markii ugu horeysay oo qaxooti ka soo cararay colaadaha ka ololsan wadanka Yemen ay soo gaaraan magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose mana jirto ilaa ay haatan cid gargaar rasmi ah soo gaarsiisa dadkan sida iyagu ay sheegayaan waxaana midaas u sii dheer qabow iyo roobab ka da'aya xilliyada qaar magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose Idilaadan Maxamed Degene telefishinka Somali Cable magaalada Kismaayo.